soo dhawaada saaxiibayaal waliba si qaas ah u soo dhawaada saaxiibada doonayo barashada video editing-ka waliba dhanka CapCut-ka. Haddaba saaxiibayaal, muuqaalkan waa muuqaalkiina. Like-ta, share-ta, subscribe-ka waa dhankiina. Saaxiibayaal, halkan waxa aan ku bixin doonaa course CapCut ah, waliba free ah, misna aan wax lacag ah lagaaga qaadayn. Saaxiibayaal, muuqaal walbo oo koorsadan ku saabsan waxa aynu soo gelin doonaa maalin walba oo Axad ah. Balse haddii aad muuqaalka wankii like saartaan, waan ka soo hormarin doonaa insha Allah. Cashirkeena aynu guda galno. Assalaamu calaykum dhammaan saaxiibada aynu halkan ku saaxiibnay. Salaan kadib waxaan idin rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan. Si aad koorsadan u qaadataan, waxaad u baahan tihiin application-ka CapCut-ka inuu taleefankaaga kugu jiro. Application-kan waxaad ka heli kartaa Play Store, Google. Dib marka la soo degto, one click see application-ka. Sidan ay kugu soo muuqan doonaa. Qaybta ugu hooseysa waxa loo yaqaanaa projects. Oo muuqaaladii aad samaysay halka ay ku soo gali doonaan. Muuqaalada waxa laga sameeyaa halkan oo loo yaqaano new videos. Qaybta xigta edit photo waa halka laga sameeyo sawirada. Qaybtan waa halka laga xirto Gmail-ka. Qaybtan kale notifications ayaa loo yaqaanaa. CapCut-ka ayaa kuu soo diri doona fariimo hadday ahaan lahayn update-ka cusub iyo waxyaabaha la mid ah. Qaybtan dhexaadaynu nimaano waxa loo yaqaanaa all tools. Waa dhammaan qalabyada uu CapCut-ka ka koobnaa. Qaybtan kale settings ayaa loo yaqaanaa. Si aad muuqaal u samayso waxaad dooran doontaa new video. New video soo dooro. Markaad soo doorato sidan ayuu kugu soo muuqan doonaa. New video markaad soo doorato sidan ayuu kugu soo muuqan doonaa. Waxa uu ku siin doonaa albums iyo library. Albums haddaynu ku hormarno waa dhammaan muuqaaladii iyo sawiradii mobilkaaga kugu jiray. Sidoo kale library haddaan tagno haddaynu tagno CapCut-ka waxa uu ku siin doonaa background, intro video iyo green screen. Waxyaabo badan ayuu ka kooban yahay. Waxyaabahan CapCut-ka uu ku siinayo ma lahan wax copyright ah. Cid kugu qabsanaysa ma lahan oo copyright ku saarayso haddii aad isticmaasho. Qaybtan albumska haddaynu soo laabano, hal muuqaal ayaan soo gelin doonaa. Si aad muuqaal u soo gashato, click see muuqaalka, then add taawo. Marka aad taawato sidan ayuu ku soo saari doonaa. Qaybtan ugu horeysa haddaan ku hormarno, exit ayaa loo yaqaanaa. Qaybtaas exit haddaynu ku hormarno, waxa loo yaqaanaa exit. Waa halka laga baxo muuqaalka. Haddii aad muuqaalkaaga samaysay oo aad habeysay, exit haddaad taawato, dib ayuu kuu celin doonaa. Saddexdan dhibic ee muuqaalka agtiisa ku taalo, haddii aad click siiso waxaad arki kartaa duplicate, rename, delete. Duplicate haddaad taawato, muuqaalkaaga waxa uu ku noqon doonaa laba muuqaal. Haddii aad ku laabato, aad taawato delete, muuqaalkii aad copy gareysay toos ayuu bixi doonaa. Sidoo kale haddii aad ku laabato mar saddexaad oo aad taawato rename, waxaad samayn kartaa muuqaalkaaga inaad magac u baxsato. Then dib ayaan ugu laaban doonaa. Saaxiibayaal, waxaa jirto logo yar oo CapCut-ka wato. Qaybta ugu dambeysa muuqaalka waxaa jirto logo yar oo CapCut ku siinayo. Exit taawo, ka laabo, then settings taawo. Qaybta ugu sareyso waxaa imaataa qaybtan ay ku qoran tahay add default ending. Anigu waan iska xiray. Hadday kuu furantaa iska xir. Hadeertan haddaan furno dib aan ka laabno in aan doorno new video kadib muuqaal aynu soo gelino. Qaybta ugu dambeysa haddaynu nimaano waxaan arki doonaa ending. Waa watermark loogada CapCut-ka. Delete iska dheh, then ka laabo ayada dhan waxaan samayn doonaa inaan iska xirno, then setting-ka imaaw. Qaybtan haddaad aynu furnay waxaan ka dhigi doonaa off, add default ending. Then one time click see
then waxaad dhahdaa discard kasii dooro, then ka laabo muuqaalkiina noogu celi. then qaybtan kale waxaa loo yaqaanaa export, waa halka laga bixiyo muuqaalkaaga markaa sameyso waa halka aad ka bixin lahayd. haddii aad taabato meeshaas yar sidan ayuu ku siin doonaa. haddii aad rabto waxaad ku bixin kartaa 4K 60 100 ms. mar walba muuqaalka tayadiisa kor u qaado waa mar walba MB-yaashu ku bixilaa ay sii bataan. halkan ayaad ka arki kartaa MB-yaashu ku bixilaa. tayada haddaad kor u qaadto MB-yaashuna way sii badan doonaan. qaybtan kale haddaynu nimaano waa full screen. hal mar kilig haddaynu siino full screen waynu haysanaa. haddaan marka la kilig siino dhankan, haddii marka la kilig aynu siino qaybtan kale minimize, qaybta kale haddaan kilig siino shaashadayna sida caadiga ayay kusoo noqon doontaa. qaybtan kale waxaa loo yaqaanaa iyadana, qaybtan waxaa loo yaqaanaa redo undo. waa halka loogu noqdo muuqaal haddii aad qaladay ama sawir si kama uu kaaga daleedmay, halka aad ugu noqon lahayd. tusaale ahaan kaligsii muuqaalkiina then split ayaan dhihi doonaa, then split ayaan taaban doonaa. muuqaalka hadda aan jarnay haddii aan calaamadaas taabano muuqaalkiini dib ayuu u laaban doonaa. click one time then muuqaalkii aan jarnay meesha maba yaalaba. then muuqaalkii aan jarnay meesha maba yaala. haddii mar kale aan click siino oo aan delete dhahno kadibna aan laabano click aan siino muuqaalkii aan delete wuu soo laaban doonaa. calaamadan kale ayadan waxaa loo isticmaalaa wixii aad deleeday ay dib soo celinaysa ayadana. then haddaan imaano qaybtan muuqaalka ka muuqdo waxaa loo yaqaanaa timeline. waa halka laga maamulo muuqaalada dhammaan, haddii ahaa lahayn overlay, add audio, sounds, waxyaabo badan. waa halka laga maamulo. qaybtan dhexe waa halka laga maamulo haddii ahaa lahayn sawir, muuqaal, add audio, overlay, effects, waa dhammaan halka laga maamulo. text. saaxiibayaal muuqaalkan haddii aynu kilig siino, muuqaalkan halkan ka muuqdo haddaynu kilig siino ama haddaynu doorno qaybtan edit, labadan waxaa ka dhexeeya xiriir. haddii aan hal mar kilig siino edit haddaynu kilig siino toos waxa uu taaban doonaa qaybta dhexe ee timelineka video ka muuqdo. sidoo kale haddaynu siino kilig qaybta dhexe ee timelineka videoga ka muuqdo toos waxa uu taaban doonaa edit. labadaas xiriir ayaa ka dhexeeyo. sidoo kale waxaa xiriir ka dhexeeyo labadan qayb add audio iyo audio. haddaynu taabano audio toos wuxuu taaban doonaa add audio. haddaynu taabano sidan ayuu noo soo saarayaa. sidoo kale audio haddaynu taabano sidan ayuu noo soo saarayaa. sidoo kale waxaa xiriir ka dhexeeya text iyo add text. haddaynu taabano add text sidan ayuu noo soo saarayaa. sidoo kale haddaynu taabano text sidan ayuu noo soo saarayaa. saddexdaas meel waa isku mid, kaa rabta ayaad ka isticmaali kartaa kii kuu dhow hadba. sidoo kale qaybtan haddaynu nimaano qaybta yar ee play buttonka ku sawiran, qaybta yar waa halka laga daaro muuqaalka. play haddaanu taabano muuqaalka wuu socon doonaa. haddaan stop taabano muuqaalka wuu joogsan doonaa. play haddaan taabano wuu socon doonaa. stop haddaan taabano wuu joogsan doonaa. saaxiibayaal muuqaal walba koorsigan ku saabsan waxaynu soo gelin doonaa maalin walba axad ah. waa mahadsantihiin. nabadgelyo. cashirkiin halkan ayuu ku egyahay. kani wuxuu ahaa hordhac inkasta oo nagu dheeraaday.